kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Faafi TV waa 11 bisha 8 sanada 2020 ku soo dhawaada warka duhur qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah dawladda Soomaaliya oo warka soo saartay cilad qabsatay diyaarad ka duushay garoonka aadan cadde ee Muqdisho ciidanka maamulka Jubbaland oo gacanta ku dhigay askari dil ka geystay deegaanada maamulka Jubbaland wabdi ka socda dawladda Soomaaliya oo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidanka maamulka Jubbaland oo howlgalo dad lagu soo qabtay ka sameeyay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland akhbaraadka caalamka intiisa kale aad ku daawan doontaan warkeena duhurna waxa qayb ka ah duulimaadadii ugu horeeyay oo u kala gooshi doona Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur imikayaatan waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo inta ka faahfaahsan ciidanka maamulka Jubbaland ayaa gacanta ku dhigay askari dilka geystay magaalada ciidanka daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa magaalada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ay ka soo qabteen askari ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya kaas oo la sheegay inuu qof shacab ku dilay qof kalena uu dhaawacay sargaalkan ka tirsan ciidanka daraawiishta Jubbaland ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen degmada Doobley ay u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan askariyaas ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta 43aad waxa uu sheegay in askarigan gacanta ay ku soo dhigeen dilkana geystay ku wareejin doonaan maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Jubbaland si cadaalad loo marsiiyo waxa uu intaas ku daray in dhawaan loo duulin doono magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland howlgalkan lagu soo qabtay askarigan la sheegay inuu dilka geystay ayaa waxa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidanka daraawiishta Jubbaland iyo sidoo kale askariga gacan ku dhiglaha ahaa kadib markay israsaaseen dhex martay labada dhinac maxkamadda ciidanka dawlad goboleedka Jubbaland ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay xukunno kala duwan ku fulisay ciidamo ka tirsan kuwa dawlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo lagu helay inay dileen askar iyo sidoo kale dad shacab ah oo ku sugnaa deegaanada maamulka Jubbaland dawladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay diyaarad cilad ay ku qabsatay hawada kadib markii ay ka duushay garoonka aadan cadde diyaaradan uu siday 207 rakaab ah ayaa ku wajahneed dhinaca wadanka Turkiga waxayna la kulantay cilad dhinaca oksijiinka ah kadib markii uu gabaabsi ku noqday xilli ay ku sii jeeday hawada dhinaca dalka Itoobiya sida ay sheegeen maamulka hay'adda duulista rayidka Soomaaliya in diyaaraddu ay si nabadgelyo ah ku soo caga dhigatay iyadoo ay eegayaan injineerada shirkadaha duulimaadka si loo hagaajiyo cilada ku timid diyaaradan ayaa saacadu markii ay ahayd 7:15 daqiiqo ka duushay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaana markii ay ku sii dhaweyd hawada dalka Itoobiya ku timid cilad hase aatee markii dambe waxay si nabadgelyo ah dib ugu soo laabatay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyadoo nabad qabto mana jiro halis diyaaradan soo wajahday ugu dambeyntii diyaaradan ayaa loo hagaajiyay xiriirka duulimaadka kadibna waxay ka duushay garoonka aadan cadde iyadoo ku sii jeeda dalka Turkiga diyaaradan ayaa bilowday duulimaadyo toos ah oo ay si joogto ah ugu imaanayso dalka Turkiga iyadoo soo caga dhiganayso magaalada Muqdisho sanadii 2012 Turkiga ayaana ah saaxiibka ugu awoodda badan ee isticmaala 1 bilyan oo dollar sanadkii 2011 taas oo isugu jirtay gargaar iyo sidoo kale soo celinta kaabayaasha dalka ee burburay 30 sano ka hor ciidamada Jubbaland ayaa xabsiga dhigay in ka badan 20 ruux kadib howlgal ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka Jubbaland howlgal magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ay ka sameeyeen ciidanka booliska Jubbaland ayaa waxa la sheegay inay ku soo qabteen tiro dad ah oo la sheegay inay ka ganacsanayeen waxyaabaha maanka dooriya howlgalkan ay ciidamadu si gaar ah uga sameeyeen xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo waxaana boolisku ay sheegeen in lagu qabtay maandooriyaha loo yaqaan xashiiska qamriga iyo sidoo kale dadkii ka ganacsanayay taliyaha booliska magaalada Kismaayo Warsame Axmed Geelle ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan uu ka dambeeyay kadib cabasho ay u soo gudbiyeen dadka ku nool xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo isla markaana gacanta ay ku dhigeen 20 ruux oo ku guda jirtay hawshaas waxa uu sheegay in dadka la qabtay ay u gudbin doonaan maxkamadda Jubbaland si cadaalad loo marsiiyo isaga oo sheegay in waxyaabaha maanka dooriye ay ka qayb qaataan falalka amni darro ay ka dhaca magaalada Kismaayo maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool xaafadaha qaar ee magaalada Kismaayo waxay ka cabanayeen in maandooriyaha loo yaqaan qamriga iyo xashiiska uu ku soo badanayo xaafadahooda waxaana ciidanka Jubbaland laga codsaday in ay wax ka qabtaan wabdi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa gaaray wabdi uu hogaaminayo siyahayaha xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo halkaasi soo dhaweyn balaaran loogu sameeyay wabdigan ayaa waxa kormeer indhaindhayna ay ku sameeyeen garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne oo ay ka socdaan shaqooyin kala duwan maadaama duulimaadyadii gudaha Soomaaliya xilligan la furay sidoo kale wabdigan ayaa waxa qayb ka ah
maareeyaha hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan, wasiir ku-xigeenka duulista iyo sidoo kale hawada Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin kale. Socdaalka wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya ee Beledweyne ayaa lagu sheegay in uu ku saabsan yahay habeynta iyo sidoo kale dhismaha garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne, iyadoo garoonka loo tababari doono shaqaale xirfadlayaal ah kuwaas oo ka shaqayn doona garoonka. saacadaha soo socda ayaa waxaa xubnaha wafdigan lagu wadaa inay kulamo kala duwan la qaataan mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo sidoo kale ee bulshada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. daawadayaal weli waxaad daawanaysaan oo la socotaan warka duhur ee Faafi TV. markana akhbaraadka caalamka. duulimaadyadii ugu horreeyay ayaa u kala gooshi doona Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. markii ugu horreysay taariikhda waxaa lagu wadaa in duulimaadyadii rakaabka ahaa oo ka soo kicitimi jiray Israa'iil ay soo caga dhigato dalka isu taga Imaaraadka Carabta, kadib markii labada dal ay caadi ka dhigteen xiriirkii u dhaxeeyay kaas oo muddaba meesha ka maqnaa. diyaaradahaas waxaa raaci doono wafdi ka socda Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka, kuwaas oo gacan ka geysan doono gaaridda heshiis nabadeed. heshiiskaas ayaana kii saddexaad ee Israa'iil ay la gasho dal Carbeed. kelmad nabad ay ku qoran tahay laguna qoray luuqadaha Ingiriiska iyo Carabiga ayaa lagu xardhay diyaaradda Israa'iil ka soo kicitimayso. waxaa sii raaci doono mas'uuliyiin ka tirsan Israa'iil, kuwaas oo si rasmi ah u furi doono safaaradda dalkooda uu ku yeelan doono Imaaraadka Carabta si ay u saasho isku socodka ganacsiga ee u dhaxeeya labada dowladood. wararka qaar ayaa sheegaya in la taliyaha madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump ahna wiilka sodonka uu yahay uu hogaamin doono wafdigan. isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadkii hore soo afjaray cunaqabatayntii ganacsiga ee uu ku hayay Israa'iil. ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa kulan la qaatay la taliyaha ka tirsan aqalka cad oo uu ka mid yahay wafdiga raaci doono diyaaradda. waxaana la sheegayaa in dalkiisa uu wada hadallo qarsoodi ah kula jiro waddamo kale oo Carab ah. waxa uu sheegay in uu filayo in dalalkaasi ay mari doonaan dhabbaha Imaaraadka, isagoo intaasi raaciyay in Falastiin aanan hadda kadib lahaan doonin waxa uu ugu yeeray go'aan qayaxan oo ay ku horjoogsadaan nabadda. daawadayaal intaasi waxaa ku dhan warkii duhur oo aad kala socoteen Faafi TV. waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la saanqaadka warkeena duhur.